kadib marka ilmaha cusub ay ku dhasho waxaad u baahan doontaa inaad gaartid go'aamo badan oo ku saabsan sida ugu fiican ee u daryeeli lahayd ilmahaaga mid ka mid ah go'aamahaas waa inaad dooratid inaad ilmahaaga kaliya naasnuujisid ama quudisid caanaha misaasadda Dr. Jesse Hannum waa dhakhtar caruur iyo dhakhtar caafimaad guud oo ka shaqeeya isbitaalka caruurta ee Children's Hospital iyo isbitaalka Abbott Northwestern ee magaalada Minneapolis. As a pediatrician, dhakhtar ilmo ahaan iyo aabba ahaan aad baan u daneeyaa ilmo iyo qoysas caafimaad qaba oo faraxsan waxaan u malaynayaa in badi hooyooyinka og yihiin in habka ugu caafimaadka fiican ee lagu quudiyo ilmo uu yahay caanaha naaska waxaan u malaynayaa inay taas og yihiin umana baahna in dhakhtartaas u sheego luul waxay la taliso naasnuujid ka tahay WIC oo ku yaala degmada Hennepin County waxayna tahay hooyo oo 3 ilmood leh waxaan u doortay inaan caruurteeda naas siiyo waxay ahayd caanaha naaska aad iyo aad u caafimaadkiisa u fiican yahay waa wax oo waligay horta waan rab inaan caruurteeda naas siiyo markaan ogaadana inta caafimaad oo ku jiro caanaha naaska waxaan go'aansaday oona ogaad inaan caanahayga kaligiisa cunugayga caruurteeda ku filin waxaan go'aansaday inaan caanahayga cabaan bis oo caano kala siinin ilaa ay dan sababto ma ogeeyaan alxamdulillah dan wax saas igu sababtana ma arkin hadartaan inkastoo hooyooyin badi ay arkaan qiimaha ay leedahay naasnuujinta badanaa waxay doortaan inay ilmahooda quudiyaan caanaha bisaasadda iyaguna laakiin waxay go'aamadoodu ku salaysan yahay sababo khaldan waxaa jira khuraafaad iyo fikrado khalad ah oo ku saabsan naasnuujinta iyo caanaha bisaasadda labadoodaba midda ugu weyn waxaa waaye dadka inay aaminsan yihiin in caanaha naaska hooyada ku filneen beebigeeda laakiinse sidaas ma ahan waa loogu talagalay beebiga inuu caano naas cabo waa wax oo alla ugu talagalay waaye hooyada hadday siiso naaska u joogto ahaan u siiso cunuga caano badan ee hooyada yeelanaysaa uuna ku filan yahay waxyaalo kale ee dadka qalad ka fahmeyna waxaa waaye in ay hooyooyinka u moodaan marar qaarkood caanaha formulaha inuu vitamins badan uu leeyahay dadka qaarkood waxay u moodaan in ay formulaha ay wax fiican yahay oo caanahana way ogyihiin inuu fiican yahay laakiinse formulaha also in lagu darana waxay u haystaan in uu fiican yahay oo cunuga ku koraayo oo cunuga ku filneen caanaha naaska ah waxaa laga yaabaa inaad dareemin laakiin waxaa naasahaaga ku jira caano ku filan quudinta ilmahaaga kadib umusha caanaha goor hore ama caanaha ugu horeeya waxaa loogu yeeraa dambar waxaana si weyn nafaqo ugu leeyihiin ilmahaaga 2 ama 3 maalmood ee ugu horeeya kadib dhalashada waxaa midka aan maqlay qaarkood waxaa ka mid ah hooyooyinka inay u moodaan markay hore ka dhalaan caanaha colostrum-ka oo la dhahay ay leeyihiin inuusan cunug u fiicneen ee tahay wax Soomaalida ay aqoon jireen maqlo ana oo kor ma ogaan gadaalan ka ogaaday inay u moodaan colostrum-ka caanaha dambar af Soomaali lagu yiraahdaa dambarka inuu wax fiican ahayn laakiinse dambarka waa caanaha ugu muhiimsan caanaha ugu horeeya waaye oo caafimaad badan aad iyo aad ugu jiro dambarka waxaa ka buuxo waxyaalo ka hortaga cudurrada ama antibaadiyo oo ilmahaaga dhawaan dhashay ka ilaaliya inuu jirado caloosha ilmaha dhawaan dhashay waxay cabirkeedu la eg yahay kaliya cabirka fataatiir sidaa darteed caano badan looma baahna markuu ilmahaaga koro ee u baahnaado caano dheeraad ah naasahaagu way buuxsami doonaan si loo quudiyo ilmahaaga oo aad quudisid caano misaasadda waxay naasahaaga baraysaa inay soo saaraan caano yar taasoo dhib ka dhigaysa habka inkastoo caanaha bisaasadda ammaan yihiin haddana uma caafimaad fiicna sida caanaha naaska ilmaha la quudiyo caanaha bisaasadda kaliya ayaa u sii badan inay jiradaan markii la barbar dhigo ilmaha la quudiyo caanaha naaska kaliya deeqo waxay tahay bare nafaqada caafimaadka ee barnaamijka WIC ee Minneapolis waana hooyo leh 3 caruur ah waxay dumarka bartaa naasnuujinta iyo cuntada caafimaadka leh caruurta badankood horta kulligood ma la dhihi karo uu jarasiin doona laakiin kuwa waxayna cunugyo caafimaad leh oo 9 bilood ku dhashtay marka caano lagu bilaabay waxyaabo badan bay caruurtaas u keenaan
waxay keentaa hurdo badan, iska hurdayaan maanta oo dhan. Waxay kaloo keentaa dilaq badan, waxay kaloo keentaa xaarka saxarada ku dhagayo. Cunugana wuxuu noqonayaa cunugoona korkiisa difaaciisa yar. Babies fed formula. ilmaha la quudiyo caanaha formulaha ama caanaha masaasada la siiyo waxaa ku sii tiro badan inay jiradaan. waxaa ku dhaca tiro si badan oo ah hergab, waxaa ku dhaca neef, waxaa ku dhaca shuban, cabuqyo. marka la barbar dhigo ilmaha lagu quudiyo keliya caanaha naaska. run ahaantii caruur waxaa jirta u baahan in la siiyo caanaha la qaso, laakiin hadduuna takhtarku dhihin cunugaada uu xanuunsan yahay, caano buu u baahan yahay, ha siinin. naasnuujinta anfac caafimaad uma laha ilmaha kaliya, balse waxaa kale oo ay caafimaad u leedahay hooyada. naaska horta waxyaabo badan buu maamadina u caawiyaa, ka mid yahay culeyska buu kaa ridayaa, wuxuu kaa ridaya adiga dhan waxaad dareemaysaa calooshiiba ku yaraanayso, minkii baa laabanayo, waqti meesha loogu talagala buu ku laabanayaa. naasnuujinta waxa ay yareysaa halista ee hooyada u tahay inay yeelato kansarka naasaha iyo udkaxansidaha, halista sankarowga iyo dhibaatooyinka la xiriira wadnaha. naasnuujinta aan wax kale wehlin waxay tahay qaab kala dheereen ilmaha 6 bilood ee ugu horeeya dhalashada kadib. haddii dhakhtarkaaga kuu sheego inaad caanaha naaskaaga ku kabtid caanaha bisacsada, u hubso inaad bamgaraysid ama lisid caanaha naaska waqti kasta oo ilmaha siisid dhalo. tani waxay baraysaa jirkaaga inuu sameeyo caano dheeraad ah maadaama aad naasnuujisid tiro intii hore ka yar. haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan bamgaraynta caanaha naaska ama wax dhiba kaa haystaan naasnuujinta ilmahaaga, waxaa jira adeegyo ku caawin kara. dhakhtarkaaga weydiiso tilmaamid. markaan hadeertaan midda saddexaad dhalay waxyaalo badan ayaan aqaanay. haddii wax dhibaato dhinaca oo nuujinta iga imaatay waan aqaanay qofkii caawinaad u raadsan karo. haddaa caawinaad waxaan hataa marka raadsada lactation consultant, because cunugtaanita saddexaad markay iyada dhalatay waxaa dhib ku ahaa naaska sida si fiican loo qabsado. hadda alxamdulilah cunugteeda 4 bilood ay jirtaa, aadayna si naasku si fiican ay u nugtaa. waxaan dhibkii hore kala kulmay hadda way ka baxday. waan ku faraxsanahay inaa hadeertaan breastfeedingka si fiican igu socdo. waxa aan rabo hooyooyinka iyo aabbayaasha inay fahmaan waxaa weeye ilmaha la siiyo keliya caanaha naaska way xoog badan yihiin oo aad bay u caafimaad qabaan. in allaale inta ay caafimaad qabaan oo fiican yihiin uma baahna caano aanan ahayn kuwa naaska. waxaan jeclaan lahaa inaan dadku u sheego dumarka dhalayaan ama hadeertaan oo dhaleen in ay aaminaan nafsadooda. maxay ku aaminaan nafsadooda inay aaminaan in ay caruurtooda naas kaligiis ku noolaan karo. insha allah waxaan jeclaan lahaa walaalahayga inay fahmaan formula inay wax fiican ahayn oo naaska caruurtooda ugu dadaalaan. naaska markaa siisid caruurta waxay rabeen maanta oo dhan ku ag joogaan, waxay rabeen adiga ku sheekeeyaan, waxay rabeen adiga dhan ku ursadaan, kula seexdaan. kuwaas keliya waxaan la arkaa bas markaa naaska la siinayo. marar kaleeto ma arkaysid cunug hadda aragtid maamo kor saaran cunug naas la siiyo waayo.